وعانو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka wararka Soomaalida waa 19 bisha 8 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ugaasyada si weyn u diidanaa hanaanka doorashada Jubbaland oo tanaasulay iyo musharaxiin ka horjeeda Axmed Madoobe oo saacadaha soo socda tanaasuli doona wafdi culus oo ka socda dalka Qatar oo soo gaaray magaalada Muqdisho iyo dawladda federaalka oo heshiiska dhismaha dekada Hobyo la saxiixatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ee taageersan Axmed Madoobe oo eedeeyay dawladda federaalka iyo beesha caalamka magacyada muwaadiniin Kenyan oo u tartamaya madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo oo ballanqaad muhiim ah u sameeyay Geele iyo Soomaaliya oo la xoogan ugu jirta kamid noqoshada Djibouti ee golaha ammaanka intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsan mid kamid ah ugaasyada si weyn u diidanaa hanaanka doorashada Jubbaland ayaa tanaasulay iyadoo musharaxiin ka horjeeda Axmed Madoobe lagu wado in saacadaha soo socda ay tanaasuli doonaan mid kamid ah ugaasyada sida weyn u diidanaa hanaanka doorashada maamulka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay fikirkiisa hore ugaas Xuseen ugaas Maxamuud ugaas Qorane oo ka soo jeeda beesha Cawliyahan ee ogaadeen ayaa sheegay inuu go'aankan qaatay isaga oo eegaya danaha bulshada reer Jubbaland iyo dadka beelyahan si looga hortago dhibaato kale oo ka dhacda Jubbaland ugaaska ayaa sheegay in isqabqabsi sii socda oo Jubbaland ka dhaca ay hogaamin karto colaad ka dhacda deegaanada Jubbaland taasi oo uusan doonayn ugaas Xuseen ugaas Maxamuud ugaas Qorane ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya oo dib ugu noqonayo howlihii dhaqanka ee uu bulshada u hayay isla markaana uu la shaqeynayo qofkii ku guuleysta doorashada madaxtinimada Jubbaland ugaaska ayaa sheegay inaysan jirin cid ku qasabtay go'aanka uu qaatay balse uu sidan u sameeyo maslaxada Jubbaland ugaaska ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka reer Jubbaland midnimo iyo wadajir isla markaana la garab istaago qof kasta oo ku soo baxa doorashada dhinaca kalena ila lagu kalsoonaan karayo warbaahinta uu sheegay in qaar kamid ah musharaxiinta isbedel doonka Jubbaland ay ku biireen garabka Axmed Madoobe sidoo kalena waxa ay iscaasilay mid kamid ah odayaashii ugu saameynta badnaa isbedel doonka oo la yiraahdo ugaas Xuseen ugaas Qorane oo beesha Cawliyahan ka soo jeeda sheegayna inuu ka baxay isbedel doonka ilaa hadda lama sheegin sababta keentay inuu tanaasulo ugaaska waxaana la soo tabiyay inay jiraan musharaxiin kale oo Cabdirashiid Xidig iyo Seeraar la safnaa ay iyaguna iscaasili doonaan saacadaha soo socda qorshahan ayaa la sheegay inay ka shaqeysay madaxtooyada Kismaayo waxaana dhaqaale ku bixiyay Axmed Madoobe iyadoo 2 cisho kadib doorashada madaxweynaha cusub ee Jubbaland loo diyaar garoobayo tani waxay tahay mid u baahan in laga dhursugo sida ay wax u dhacayaan xilli dawladda federaalka iyo beesha caalamka diidan yihiin sida wax loo maareeyo hanaanka doorashada Jubbaland geesta kalena wafdi culus oo ka socda dalka Qatar ayaa soo gaaray Muqdisho iyadoo heshiis ay kala saxiixdeen dawladda federaalka iyo dawladda Qatar wasiirada degadaha Soomaaliya iyo Qatar Maryan Awees Jaamac iyo Jaasim bin Sayf Ahmed Al Sulid ayaa si wada jira maanta u shaaciyay in la bilaabayo dhismaha dekada Hobyo ee gobolka Mudug munaasabad oo lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa goobjoog ka ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiirka arrimaha dibadda Qatar madaxweynaha Galmudug qaar kamid ah xildhibaanada labada gole wasiire iyo wasiir ku-xigeen ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirka degadaha Qatar oo ra'iisul wasaaraha dalka uga mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loogu sameeyay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dekada Hobyo loo dhisayo habka ugu casrisan ee dekad loo dhiso laga bilaabo maantana laga howlgalayo qorshaha dhismaheeda si shacabka Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan wasiirka degadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryan Awees Jaamac ayaa cadeysay in bilaabida dhismaha dekada Hobyo ay muhiim u tahay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo horumarinta dhaqaalaha dalka horaantii bishii December ee sanadkii 2018 ayaa dawladda Soomaaliya iyo Qatar waxay magaalada Dooxa ku kala saxiixdeen heshiis horumarineed oo ay kamid tahay dhismaha dekada Hobyo waxaana xiligaasi wasiirka dekada Qatar oo kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre u ballan qaaday in dawladda Qatar sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabayso mashruuca dhismaha dekada Hobyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee taageersan Axmed Madoobe ayaa eedeyn kulul u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa taageersan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray arrimaha doorashooyinka maamulka Jubbaland ugu horeyn xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay iska indhatirayso dastuurka isla markaana ay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka maamulkaasi war-saxaafadeedkan oo loo diray madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay waajib tahay in cid kasta ay ixtiraamto dastuurka u yaala dalka sidoo kale xildhibaanada ayaa dhaliilay dadaalada beesha caalamka waxaana ay ku eedeeyeen in hal dhinac oo kaliya ay culeysyo saarayaan ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in dalalka deriska ay sidoo kale faragelin ay ku hayaan doorashada Jubbaland taas oo meel ka dhac ku ah qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya dhinaca kalena magacyada muwaadiniin Kenyan oo u tartamaya madaxweynaha Jubbaland Jubbaland ayaa la ogaaday wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya oo warbixin ka qoray doorashada Jubbaland ayaa sheegay in muwaadiniin Kenyan ay u tartamayaan hoggaanka maamulkaasi wargeyska ayaa xaqiijiyay in 3 ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ay haystaan dhalashada Kenya isla markaana ay doonayaan inay hogaamiye ka noqdaan maamulkaasi The Star ayaa shaaciyay magacyada musharaxiintaasi kuwaas oo kala ah Maxamed Shakuul, Maxamed Marshaye iyo waliba Cabdiraage. Kenya ayaa hore u shaacisay in musharaxeeda koowaad uu yahay Axmed Madoobe isla markaana ay ku garabsiinayso doorashada Jubbaland. Dowlado badan ayaa isku haya doorashada dhawaan ka dhacaysa Kismaayo waxaana ka mid ah Itoobiya, Qatar iyo Kenya. Khamiista soo socota ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada Jubbaland iyadoo wali uu jiro isjiijid u dhaxeeya musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweyne Axmed Madoobe madaxweyne Farmaajo ayaa ballanqaad muhiim ah u sameeyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyadoo dhanka kalena Soomaaliya ay olole xoogan ugu jirto ka mid noqoshada Djibouti ee golaha ammaanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo dhigiisa Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta magaalada Djibouti ku yeeshay wadahadalo miradhal oo ku aadan sar u qaadida xiriirka xooggan ee labada dal madaxweynayaashu waxay ku heshiiyeen in la sii dardargeliyo iskaashiga labada dal oo ah mid ku dhisan walaaltinimo iyo wax wada qabsi booqashadan ayaa salka ku haysa aragti wadaaga ku salaysan iskaashiga wadajirka dan wadaaga iyo xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya labada shacab ee walaalaha ee Soomaaliya iyo Djibouti safarkan waxa madaxweynaha ku weelinaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Canshuur Xasan iyo agaasimaha madaxtooyada mudane Nuur Deeriye Xirsi Fursade dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo booqasho shaqo ku jooga dalkan aan walaalaha nahay ee Djibouti ayaa maanta wadahadalo wax ku ool la yeeshay dhigiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Canshuur Xasan oo ka warbixiyay kulanka ay yeesheen labada madaxweyne ayaa sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka walaaltinimo iyo waliba wax wada qabsiga labada dal wasiir Canshuur ayaa yiri waxa laga wada hadlayaa sidii loo sii xoojin lahaa loona dardargelin lahaa horumarka iyo wax wada qabsiga labada dal ee walaalaha ah dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo isna ka warbixiyay kulanka ayaa xusay in labada dhinac ay isla afgarteen arrimo masiiri oo la xiriira amniga dhaqaalaha iyo arrimaha ka taagan gobolka isagoo bogaadiyay guulaha ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhawaan ka gaareen dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada walaalahan Soomaaliya aad ayaan ugu hambalyeeynaa sida ay maamulka iyo talada Soomaaliya u wadaan aad ayuu madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa ugu hambalyeynayaan la dagaalanka argagixisada sida ay uga shaqeynayaan iyo sida ay u xoojinayaan deganaanshaha iyo xasiloonida dalka arrimaha gobolka ayaa laga xaajoonayaa Suudaanta wadcigeeda waad arkaysaa koonfurta Suudaan waa sidaas si la mid ah Yemen oo aan naga fogeyna dhibaatooyin badan ayaa ka taagan sidoo kale Djibouti waxay tartan ugu jirtaa inay golaha amniga ee qaramada midoobay xubin ka noqoto taageero ayaan ka sugaynaa walaalaheena Soomaaliya ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Djibouti kulankan ayaa waxa madaxweynaha ku weelinaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Canshuur Xasan agaasimaha madaxtooyada qaranka mudane Nuur Deeriye Xirsi Fursade iyo danjiraha Soomaaliya ee Djibouti mudane Maxamed Cali Nuur
ugu dambeyntiina guddiga doorashada Jubbaland ayaa sheegay in sababta ay u fulin waayeen qaar ka mid ah tallaabooyinka ay ka codsadeen beesha caalamka ay tahay inay kalsooni buuxda ka heesaan shacabka Jubbaland. Gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Bare ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Kismaayo wuxuuna ku adkeystay in doorashada Jubbaland waqtigii loogu talagalay ay u dhaceysay si xor iyo xalaal ah. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubbaland ka dalbaday inay fuliyaan dhammaan qodobadii ay ka dalbadeen beesha caalamka. warqadii uu diray gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi Bare ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ugu horeyntii loogaga mahadceliyay guddiga go'aanka ay 3 maalmood ee ugu dareen musharaxiinta aan wali isdiiwaan gelin muddadaas oo aad u yar marka loo eego doorashada madaxweynaha ee dhacaysa 22 bishan Agoosto. James Swan ayaa warqadiisa ugu sheegay Xamse in isbedelada guddigiisa ay sameeyeen aysan wali buuxin tallaabooyinkii beesha caalamka ay codsatay in la qaado si loogu kalsoonaado hanaanka doorashada Jubbaland. warqadeeni 8 Agosto aan ku soo diray aniga oo ka wakiila saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxaan ku adkeynay muhiimadda hanaanka doorasho oo cad oo la isku raacsan yahay la iskuna haleyn karo isla markaana heli kara taageerada dadka Jubbaland oo dhan horseedi karana midnimada bulshada Jubbaland ayuu ku qoray James Swan qoraalkiisa. wakiilka ayaa qoraalkiisa sidoo kale ku sheegay in haddii aan la qaadan tallaabooyinka ay codsatay beesha caalamka aysan taageeri doonin natiijada hanaanka doorashada Jubbaland. wali xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan doorashada Jubbaland waxaana socdo qorshe lagu xalinayo arrintan oo ay wadaan odayaasha dhaqanka Jubbaland. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. waana mahadsantiin.